in badan waxaan aragnay dadku ole maxaad naga aaminsan tahay oo noo soo diraya sawirada qaar. taas halkeeda maanta barnaamijkeenan ayaan kaga hadli doonaa. haddii aad rabto inaad ogaato qof kale ama dadka waxay ka aaminsan yihiin, kaliya waxaad samaysaa inaad isku qabatid indhahaaga oo dhagaaga si wacan isku furtid. haddii aad indhaha isku qabatid dhagaana xidhatid aanu dareenkaaga adig laftirkaaga joogin, markaas qofka ma ogaan kartid wuxuu ka aaminsan yahay. kaliya indhaha xidh, dhagaagana si wacan u fur. waa hubaal qofkaas wuxuu ka aaminsan yahay inaad ogaan doontid. cilmi-baarayaasha sameeyey daraasadan ayaa sheegay inay natiijo ka gaadheen daraasadan ay sameeyeen. sidoo kalena waxay sheegeen inay wax u tari karto dadka meelkooda shaqeeya iyo dadka xiriirka leh guud ahaanba. sidoo kale waxay sheegeen faa'iidada ay leedahay in la xidho indhaha oo dhagaha la furto, taas oo ku faa'iideynaysa markaad codka si wacan u dhagaysto inaad fahamto dadku waxay ka aaminsan yihiin. sidoo kale cilmi-baarayaashu waxay sameeyeen 5 tijaabo oo ay ka qayb galeen 18,000 oo qof. tijaabadaasna waxay ku arkeen marka dadku wax la dhagaysiiyo oo si wacan u dhuuxaan inuu dareenkoodu soo jeedo xilli kasta, waxna kala saari karaa. Dr. Michael oo hogaaminayay daraasadan ayaa waxa uu yidhi, waxaa noo soo baxday in codkoo si wacan loo dhagaystaa inay dadka ku riixayso inay si wacan u fahmaan waxa ay dadka kale ka aaminsan yihiin. badanaa marka waxaan dhagaysanayno waad aragteen inuu qofku telefoonada laba dhagoodba gashto oo indhaha isku laabto jawi kala galaba qofka wiilaadanka. inta ku kulmayno barnaamijkan barnaamijnimada wax naga tagnaa sidaas. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sidoo kale waloobin inaad subscribe saartid. si aad u hesho muuqaalo badan hadda subscribe dheh oo ka mid noqo kumanaanka qof ee ku xidhan channelkayga Xamse Jooqane. nagu soo bir caalamkan cusub adoo ka faa'iidi doona xogooyin iyo dhacdooyin la yaab leh.